فبالله كم تستطب القرور ويبرأ جروح الكسير. ما ربطا إنا تكون ولا تنول عافماد له أيناو جوابتاد وها ما ربطا إنا تكون ولا تنول فرحاد له أو فرحاد بوح دافيسي أيناو جوابتاد وها ما ربطا إنا تكمارنتيد إنا تأرجدتو إنا بلا آدم إنا تكأرجدتو أو أتكون فكرتي حقد يحسنمو أيناو جوابتاد وها عن كلها هاي برا نفتادا naftaada oo aad barato waxay ku horseedaysaa waxyaabahan ku soo sheego dhan inay bokiska gurigaaga yaalay kugu jiraan. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waa gabadhiina Nasro oo idin leh welcome to my YouTube channel. sanadka hore suuqiin dambeysay waxaan rajeynaa sanadkan maaragtay inuu nabad qab caafimaad iyo bashbash iyo barwaaqo uu ku bilowday sidoo kalena aad يعني هدفيدادي maaragtay aad sanad to sanad years to years aad dib u dhigaysay inaad soo diyaarsato book oo aad leedahay mustaqbalkayga khaaliga ahaayo I'm ready for 2024 insha Allah waxaan ku rajaynayaa hadafkaaga inaad maaragtay aad ka guul gaartid. Anyway maanta 2024 mowduuca ugu horeeya YouTube-kayga maaragtay inaan kugu dhiirigeliyo ama aan ku bilaabo waa bara naftaada. barnaftaada waa mowduuc aad u dheer laakiin waxaan isku dayaa maaragtay inaan wixii intii aan ka awoodo ama aqoonteeda intee la eg tahay ama aniga my own experience inaan kula wadaago. Number 1 horta naftaada baratid waxay ku horseedaysaa inaad maaragtay qaladaad fara badan oo maaragtay nolosha dhinac walba ah inay ka yaraadaan. kuma dhahay inaad noqotid qof maaragtay oo qalad aan sameynin way haddii aadan qalad sameynin maskax ahaan ma u hormaraysid. qofka bilaadanka inuu qalad sameeyo oo qaladkiisa wax ka barto waxay kamid tahay maaragtay aqoonti kamid tahay aqoonta maaragtay iskuulaadka iyo maaragtay jaamacadaha lagu dhigo ma ahan aqoonta waxa kamid ah xataa qofka biix maskax ahaan inuu qalad sameeyo oo maaragtay qaladkiisa oo saxo oo ka qoomameeyo oo maaragtay oo hore u socdo. maskaxda maaragtay maskaxda kobcinteeda ay qayb ka tahay qaladka. sababtoo ah anigan kula hadlaayo haddii aan qaladaad badan nolosha aan soo sameyn lahayn positionka aan maanta joogo maan joogeen. marka qalad sameey laakiin ha noqdo qalada wax ka baratid taas xageedig. haddii aad rabtid inaad ku noolaatid nolol caafimaad leh nolol nabadgelyo iyo amni loo xasilooni oo peaceful ah nolol maaragtay aadan ka fikirin maaragtay inaad aargudato oo tiraado oo qofkan waxa waa 10 aan u dhigaa qofkan waxbaan baraaya saas igu sameey. haddii aad rabtid inaad ka kaaftoonato waxaas oo dhan waxaad uga kaaftoonaan kartaa inaad naftaada barato. naftaada aad barato waxay ka caawinaysaa waxyaabahaas aan ku soo sheego dhan inaad maaragtay aad daaqada ka tuurto. matalan dadka noloshaada ku jira nooc doonaha isugu jiraan ama ehelkaaga ha ahaadaan ama saaxiibada ha ahaadaan ama dad wada shaqaysan ha ahaadaan naftaada marka ogtaa waxa ay rabto iyo naftaada waxa ay dhibsanayso oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala aad la kaashato wax walba aad sameynaysid 100% waxaan ku hubaa inaad noqonaysid qof maaragtay very yani special oo naftiisa u mahad celiso. dad badan naga mid ah naftooda waqti ma geliyaan ma bartaan mar walba marka waxaad maqlaysaa qofka inuu leeyahay qofkaas wax igu sameeyay waan ka aargudanaya 10 aan u dhigaya. inta aargudasho la gaaro qofka markaad wareysato oo la sheekaysato waxaad ogaanaysaa qofka inuu naftiisa uusan aqooninba. naftaada oo baratid ayaa qofka ugu filan aargudasho. maxay yahay waa maxay aargudasho? hadaa naftaada aad positionada qaar dadka qaar aadan hoos geenin ma waxaad ku fikiraysaa ma waxaad time u helaysaa inaad ka aargudatid? no. markaad naftaada taqaano qofka raba inuu kugu soo xadgudbo ama qofka raba inuu ku dhibaateeyo ama qofka raba inuu hoos ku dhigo adaab ka guuleysana maxaa yeelay waxa ogtahay wixii naftaada ay rabto. soo marka 2023 mowduuciga naftaada baro. marka 2024 mowduucii ugu horeeya maaragtay aan kugu dhiirigelinayo ama aan raba maaragtay inaan kugula taliyo inaad naftaada aad baratid.
si aad uga maaranto waxyaabaha aan carabka kusoo dhuftay waxaan maanta maaragtay dul istaagayaa aargudasho. inta badan aargudashada maxaa keeno ama markaad bili-aadan qof ku dhibaateeyey shaloo kaleeto shalay qofka markuu ku dhibaateynaya naftaada ma aadan aqoon, naftaada markaas aqoon kugu filan umaadan lahayn, sababtaasuu qofkaas wuxuu u helay jaanis uu kugu dhibaateeyo. laakiin maanta naftaada markaad baratid jaanis buu uma helaayabo, markuu kugu soo socda waxaa leedahay stop, naftaa istoobeynayso ilaa naftii moogtahay waa la tababaray, waa la carbiyey. marka waxaas dhan waa ka maarmaysa, xataa adiga inaad maaragtay dambi ku dhacdo, inaad qof kalo bili-aadan aad ku xadgudubto, waxaas dhan waa ka maarmaysa. marka please and please naftaada baro, naftaada baro, naftaada baro. naftaada markaa barato oo ilaahay subxaana watacaala alla kaashato, waxaan kuu ballan qaadayaa qofuna inuusan ku loodin karin. qof walba intaas u fiirsaa waxaa leedahay keep going, aniga nafteeda waa aqaanaayo. marka enerjigaa kuu baaqanaayo, waqtigaa maaragta qofka lagu aargudo lehda kuu baaqanaayo. waxaasoo dhan hadday kaaga xirantahay keliya inaad naftaada barata ka waran ya. soo ayaan darro maahan marka inaad naftaada waqti geli wayso oo bara waysid. insha allah meel shaqan usii cari rabaa mawduuceena maaragta naftaada baro wuu sii socon doonaa hadduu ilaah yiraahdo. waxaan ka sameyn doonaa xalaqadaan ka sameyn doonaa kale, laakiin maanta xalaqada aan dul istaaga waxa waaye naftaada baro si aad uga maaranto inaad qof bili-aadana ka aargudato ya. brobleenku qofka ma ahan, laakiin brobleenku waa naftaada aadan aqoonin oo aad hoos geysay qof aan u qalmin.